صاحبكي my best friend كتاريب مقالة مرشيدس بنت وشقين جري دايملا وشقينا ولا أي دايملا وشقينا fariintayda ka hor intaan ku guda galin waxaa halkan rabaa inaan kula wadaago gabar Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka ku sugan oo ka waramaysa qof Jarmalka ka tagay oo nolol fiican ku haysta oo dhaqaale fiican ku haysta jooga dalka Mareykanka hadda inuu ku jiro nololtii ka adag inuu qof hoos fadhiyo inuu shaqatii ka liidata hayo waan salaamay salaanka bacdi Ramadaan Kariim dhibaatada dalka Mareykanka Soomaalida ku haystaan ka hadlay waa xaqiiqo ah dad badan siyaabo kala duwan uga hadlaan laakiin waxa rabaa intii ma aragtay wanaaga ina arintaas ka sheego muhiimadeedu ma aan dalka Mareykanka inuu xun yahay ama dadka Mareykanka ku nool Soomaalida inay xun yihiin laakiin systemka dalka Mareykanka ayaa wuxuu xayirayaa qofka tahriibaha ah waxaan ka hadlayo gaar ahaan dadka Europe ka yimid ee waqtiga iyo dhaqaalaha uu ka soo qasaaray ko Afrika kama hadlayo fariintayda ka hor intaan ku guda galin waxaa halkan rabaa inaan kula wadaago gabar Soomaaliyeed oo dalka Jarmalka ku sugan oo ka waramaysa qof Jarmalka ka tagay oo nolol fiican ku haysta oo dhaqaale fiican ku haysta jooga dalka Mareykanka hadda inuu ku jiro nololtii ka adag inuu qof hoos fadhiyo inuu shaqatii ka liidata hayo qofkaas waxay ku tilmaamtay ama ku sheegtay inuu mid kamid ah shirkadaha ugu weyn dalkan Jarmalku ka shaqeynaa ama Mareykanka xataa shirkadaas mid ugu weyn ay kamid tahay ay ka waramaysa noloshiisii iyo nolosha hadda uu galay dhibaatada uu dareemayo iyo isbedelka ku dhacay marka from top to zero ina aadid qofku ma dareemi karo marka hore laakiin markuu dareemo way ku adag tahay dadka qaar inay ka jawaab celiyaan ama ay ka hadlaan laakiin maskaxiyan way dareemi karaan way u jeedaan way arkayaan xanuun iyo ciilkaas inuu xanuun ku rido laga yaabaa marka ina hadasho caafimaad helisa ficilkaas wax ka duwan inaad sameeysan faa'iido ay ku tahay aaminsanahay in Mareykanka in loo soo tahriibo waa qabaa laakiin dadka wadamada saddexaad ka imaanaya Europe dadka citizen ku haysta ama deganaanshaha ama qaxootiga ku haysta ee shaqeysto aniga waxaan dhahay yaa leedin soo sirin sababteedana ma aragtay waa idin sheegi doona haduu ay baraali ka noqdo qayb dambe barnaamijka hase aatee gabadhan walaasheen horta aan dhageysano fariintan ay direyso iyo waxa ay ka hadleyso oo ah dhibaatada ku haysata qof Jarmalka ka tahriibo oo iyadoo garanayso oo dadkii ugu dhawaay dadkana kamid ah السلام عليكم walaalkaygi horta waa ku salaamo niyo tan waa dhacday ma faanto waana kugu dhacday wixii ilaahay ku qorana marna lama seego waxa weeye في لوح محفوظ wax looxa ku qorna qofka binaadamka wuxuu u qoran marna ma seegay meesha ka caayshayso meesha ka cunayso meesha ka cabayso halka seexanayso halka mustaqbalka tagayso halka jashada ku god inta wax alla qoray Allah weena rabbil izzaga aku soo fududeeyo waxa alla ku qoran marna ma seegaysid waana heshay laakiin waxaad inaad ka fikirtid laakiin tan waa dhacday البخيل يخسر مرتين بين Soomaalidu waa iska faasana dollar ba wardeysay laakiin bifoodu aan dollar ku ordenin وما سنش كود informiert mijn broeder ويا تفيعن وجوجا وذي كرم باجوكتا economic system كدقيقة والبدعة على جسد دايا أمريكا تتكلم homeless نقدين تتكيو دشيو حقلها economic حمد دت تراجعين ولا ففديان محاول دي ويدا دتك وما سنش كفاية نش كفوست إنا مش عسنا في عكابة ورينين والله قبلنا ملايين رك Soomaaliyeed oo tahriib ku jira ama tahriibi raba ay ka aragti duwan tahay kana fikir wanaagsan tahay waxaabay weydiinayso waxa kamid maxaa marka hore u ogaan weysay maxaa dhaqaalaha u fiirin weysay maxaa u fiirin weysay martabadii meesha aad ku sugan tahay iyo meesha aad tagtay waa wax xaqiiqo ah horena ugu sheegay markii hore video-an ka hadlay waxa idinku yiri waxa maskaxda iga bedelay qofka la sheekeysanayay oo wax wanaagsan kaliya iga sheekeynaa waxa dhici kara waxa xun inta maanan eegin hababba uba iska iri gabadhan Soomaaliyeed hadda dhaqaalaha ma u fiiri weysay adi meesha ku sugan tahay marka aad tagtid wax isbedeli kara maxaa u eegi weysay maxaa macluumaad ula socon weysay maxaa dad ma aragtay wax fahmi kara ula hadli weysay xataa inta way weydiisay طبعا taas hadan qarsanahay laakiin iyadoo aan tahriibin ay qarsan tahay waa ma santaa wala shay qasab hada waa badacdan waxba laga ma qaban karayso fabay mafahantay waa meesha waa tagtay allana waa ku nabadgeeyay adoo Jarmal joogaba America dib ko ina weel dhaqdhaqdo ku suga wali weel dhaqawgi baa ku waray
weliba saaxiib maqaaxidii waan wallaahi saaxiibkay my best friendigayga ka taariiba magaaladayda Mercedes Benz uu shaqayn jiray Daimler uu shaqaynaa wallaahi Daimler uu shaqaynaa Daimler waa shirkad weyn waxyaabo badan soo saarto Mercedes Benz iyo ma aragtay gawaari badan ay soo saartaa waa shirkadda afaraad saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan leh Yurub dalkan Jarmalka sidoo kale labaad ama saddexaad ku jirta oo shaqeynaya ninka Mareykanka u taariibay hadda ka waramaysa taariikhda dhibaatada uu la kulmay marka waa roonta adiga hadda imaadaha calaa calin digsi dhaqoow ku sugayda ninkii Daimler ka shaqeynaya digsi dhaqoow Daimler ku qorguglaha raadi shirkad mid ma aragtay qofkii ka shaqeeyay uu sanka taaga waayo Jarmalka iyo Mareykanka naftirkiisa shirkadaha baabuurta sameeya ama geeyo Daimler way Jarmal ku midoobay hada walaashana dhageysan bayaraada Daimler ka maaqta ilaa madaxiisa ka shiba ismayna good friends wallahi waa tahriibay waliba xitaa mac salaama ima dihin jis xitaa xanaan jaaw xitaa ima dihin mac salaama xitaa waa tahriib waa sax dadka Jarmalka markay ka soo tahriibayeen ama laga soo tahriibayo lama sheego qofkii maanta kula joogo baabri soo dhahay dhamaantay saasa ku soo wada baxnay waxa u maleynaa Mareykan hadii la soo galabo baabuur taraag in la wada wa anaga la soo dhadhiciyay maanta waa soo tahriibay 10 kuna soo bixiyay qajajajac wadadaas soo mar marka soo galay mobile lama wadinin dharna ma wadinin mobile ma wadan dhar ba wadan mobile in la gado sariir qof in la isaaro cunto meel ina ka soo cuno gaari qof in la la balamo in magaalo la soo kala tuso shaqo lagama hadlaayo sharci waaba hool kaleeto oo cid ku sheegaysa male marka dhuumashadu waa wax dadka ku wada jiro waxay ogyihiin mugdi inay ku socdaan gabadhan walaasheen way sheegaysaayo ima sheegin ilaa saaxiib fiican aan isku een qofkaas habra Soomaaliya maqaaxiya leeyihiin ma ka shaqeeyaa biiri habra canjeera marka arwiliba canjeerada ku dubay ku gafiyay bigamiye biiri waxana ku weelasha dhaqa weelashii dhulka masxaabir waa ninka Daimler u shaqeynaya adduunka laba ah sabaan shaqeeyo ku shaqeynaya ninkii Daimler u shaqeynaya ee 22 euro oo ka badan 3 ma aragtay 25 27 dollar gaaris ku shaqeynaya Jarmalka joogay deganaasho ku haystay waxay dhaad maqaayadu ka shaqeynaya maanta canjeerada xataa looma ogol inuu dubo darajada labaad oo isfaayta class oo kaya xataa maqaayada canjeerada ma dubaya isaga ma fahmaysaa haduu barbaranaya marka canjeerada saa loo dubo laga qaado buu isagana sii masaxaya saliidana sii marinaya iyo cajiinku sii qasaa ishaa uu sii geeya wala sii tababaraya mina qofkan waa shaqo mugdi ah oo Soomaali ee leedahay oo maqaayad ah oo iyada dhanba $50,000 ku furan buu wuxuu kaga tagay shirkadii Daimler oo Jarmalka ku taalo oo trillions lacag haysato waxyaaba aan xisaabi oo hordada iga soo kiciyay oo ii diiday inaan jiifan waayo waxa waaye inaan u shaqeeyo qof adoo kaleeta oo $100,000 meel ku furtay iyo $50,000 meel ku furtay oo aflagaada ka soo horeyso inaan Mareykanka u imaatay waliba waa aqbalsanaa marka aan ka soo baxay Yurub waliga dhaadhici Soomaaliya oo shaqeynay mid taraag wada mid dukaan u kada mid aliga dhaadhici shirkada aan ka shaqeynaynana shirkada ajnabi oo dhaqaale haystay ahayd marka walaashii waxay hadda soo waca markuu dhibaatoodo soo waca anaga saaxiibada waa wacnaa waana ku nafisnaa waan u sheegnaa dhibaatada meesha ka jirto marka walaashii aan dhameeyay hadalkeeda 2019 Daimler ka shaqeynay Mercedes ay maanta weel ka dhaqaa Mareykanka 12 lacag ka badan ayaa lawyer layga rabaa bilmeena ka keenana male dad baana dul saaran hay kule waa ninkii dhamaay aygana boonum Stuttgart mita kulaha war nolol xumada baabuurtooda ka carreen shaqooyin feestaabe Stuttgart ninkii deganaa ee gurigiisa haystay ee baabuur haystay ee nolol fiican ku jira ee Daimler u shaqeynayay 10,000 oo waxa looga baahan yahay dhowr 10,000 looga baahan yahay oo lawyer ah wuxuu ka shaqeynayaa maqaaxidan shaaha ah iyo meelihi aadin sheego dawacsar iyo ma aragtay ragaan kaleeta ay hadalka afkiga iska soo qabta raali ahaade ay tagtaagan yihiin Soomaalidan kaleeta Snapchat ka duubayaan ka shaqeynaysa 12,000 guriga ku noosha Yurub marka soo gasho waxyaabii aan ka faa'iidna bariga waxa kamid ah
yurub waxyaabaha ay ku roontaa waxaa ka mid ah waxay ku geenaysaa kaamam cunto iyadaa ku siinaysa looyarka iyadaa ku qabanaysa kotokotan iska bixinaysa meeshan 10 kun lagaa rabaa inaad soo shaqaysato waaye nin saaxiibkaa ma kaa bixinay dharka ciidda ma ku gada lacagta ramadaanka ma kaa bixina adduunku waa qaadiyo waa kacay cid kuma hayn karto brother marka you have to go back sharciyadii baasaboorka sitiisika waqtigiisa inta waa u gaaray waa qaadan kara waa inay habaaran yihiin Soomaali Mariyole saa ku karo driver maxaad LKF faaran oo leeyahay isagaaba problemkiisa shushkiisa watay waxyaabaha ay ku sheegayso waxa ka mid ah qaladaadka aan sameeyno anagoo citizen-kii gaarno oo maalmo nooga harsan tahay ka soo tahriibnay Jarmalka Mareykanna soo galnay marka waxay ku leedahay ninka odaga ah citizen-kiisana uu qaadan karay ma fahmaysa waxa waala maxay tahay Soomaalidu ay habaarta dabcan hadaa fiyuunahay hadaa caafimaad qabna hadaa duceysanahay horta wadadaas inta soo marna maanta nin gurigiisa inuu nagu beelo oo dhar ciid noo gado oo ramadaanka naga bixiyo oo cunto ah u karino waxa noo kalifay waxa weeye aqal daradeena fikirkeena iyo qaldanaa waay waxa u haysanaa laakiin maalinka soo gal ina isaga la midnahay xisaabta un taasna ay qalad qaladkeen ina saxi karna ani aaminsanahay rag badan oo qaladkood inay saxaan rabaan way joogan waxa rajeenayaa ina arintaas bal ilaahay ka barin inuu noo fududeeyo gabdhaha naftirkood ee wadaga soo galay ama nin baa guursada oo boobsiisa ama degsaday meel kale ama ma garanaysaa qof dhimir kale aba islaanta habarta dhaadi wiilkeyga sharci ku qaaday ee ku soo xareey ama odo daalan daabiriska laga bedelo baa leeyahay lagu sasabo wax kale oo meesha ka jira malahan marka dadkeena Yurub ka tahriibay ina dad hoos joogo u noqono gabdhihiina rag ama dumar hoos joogo u noqdaan guriga uga shaqeeyaan annagana aan rag guriga uga adeegno oo mishaarka biilka noola saara miiska korkiisa annagoo ahayn dad nolol heesta waa ceeb ina ka fooljignano kuwa dambe yaa la soo lugoyn annagana ila arrintaas arrinka duwankeena rajina gabadhan walaasheena waxay ka hadlaysay qof Soomaaliyeed oo saaxiib yihiin ama saaxiib ahaayeen Stuttgart ay wada deganayeen oo shirkadda Daimler u shaqeynayay xilligaas wuxuu ku shaqeynayay 27 euro lacag ku dhow shirkad weyn oo magac leh oo u shaqeynaa Mareykanka ku tagay iminka waxa uu shaqeeyaa reer maqaayad ay leeyihiin oo 12 kun ama 50 kun ku furan islaama qaar ay leeyihiin ama rag qaar ay leeyihiin wuxuuna shaqeynayaa lacagtii oo lawyer ku qabsan lahaa lawyerkaas wuxuu ka anfici doonaa in uu u soo dhiciyo sharci hada ogow ninkaas shaqo iyo sharci uu ka soo tahriibay dabcan warbixinta meesha ugu dambeysana walaashan wuxuu ku sheegtay inuu citizen-ka gaaray uu xareysan karo waa maasantii waa salaamaya ilaahay umuraha inoo fudeeyo dhibaatadana mid gacmeen aan ku oogana waaye inaan ka badbaadno kuwa soo socdana ka badbaadin inaan isku dayno waa salaamaya anigu go'aankaygu waa ka hor in kugu sheegay ummadda tahriibka yaa lagu halaagin qofka soo tahriibaya waa qof dulqaadkeeda leh dhaqaalaheedii maaragtay qofka soo tahriibayo maxaa ka dhumaaya maxaa u socotaa aniga Afrika lama hadlaayo dadka Afrika lama heesto walaalahaas in soo tahriibaan waxba kama dhihi karo mana ku darsana laakiin dadka sharciyada heesta Yurub iyo wadamada khayraad kale ku noolaan ka hadlaayo salaamatiin salaam